hay-adda warshadaynta hubka Turkiga ayaa shaaca ka qaaday bilowga soo saaridda gantaalka Atmaj ee lidka ku ah maraakiibta, iyadoo xustay in uu si guul ah uga gudbay dhammaan tijaabooyinkii una geli doono xilli dhow safka taliska ciidamada badda ee Turkiga. Atmaj waxa uu bedeli doonaa nidaamka gantaalada Harpoon ee lidka ku ah maraakiibta, waxaa loo isticmaali doonaa markii ugu horreysay maraakiibta dagaalka ee Milgem iyo Gabi Class, kuwaasoo ku qalabaysan nidaamka Genius Combat, isagoo ku shaqayn doona mashiinka loo yaqaan Kali 3200. Atmaj wuxuu awoodi karaa inuu gaaro joog sare oo aad u fog kadibna uu asiibo markabka. raadirada ku xiran awgis gantaalkan waxa uu suurtageli karaa inuu si guul ah ku asiibo bartilmaameedka. gantaalkan badbiriga ayaa awood u leh inuu bartilmaameedka ka duqeeyo masaafo dhan 220 kiiloomitir. sidoo kale waxa uu xambaari karaa madaxyo qarax oo miisaankoodu dhan yahay 250 kiiloogaram. waxaa soo saartay shirkadda Turkiga Roketsan taa oo caan ku ah samaynta gantaalada la hago, kuwa aan tooska ahayn iyo kuwa laysarka. gantaalkan ayaa bedeli kara bartilmaameedkiisa xitaa kadib marka la rido. Turkiga ayaa horumar ballaaran ka gaaray samaynta hubka sanadihii ugu dambeeyey. sidoo kale 4 shirkadood ee warshadaynta hubka oo Turkiya ayaa kaalimaha hore ka galay 100 shirkadood ee adduunka ugu sarreeyo.